garowa ah oo isagu iga soo horeeyay gabayga markii jawaabta way kanu waxay nabad doontixdi dhalad helayo dhumucda weyneed dambaalkaadu warlalayaha dhigtay oo dhiibtay noo yimi doona deeqiyo sida dhoolankooda dhamac kale leed niman gabayga dharashaa jiro aan dhug ku lahayn adiga maansa dheemana rabbi baa kuugu shubay dhoone dhibilaah ka hayow abwaan dhiiran baa tahay wadna dhihi taqaana haday dhimanayaan qaar afarta dhammeeya waxaan dhaabay uga yeelay intii duni ilaahay dhidbay ee dhaabay udubkeeda dhulkoo la isku laayay yarlada dhagartu waa tiil wadkuna kama hor dhaco mana akhiro dheydkii loo qoray lagumana dhaqnaadeen haddaan dhiigga loo shubin dhimashada ninkii ka cabsada baa laga dhaqaajaa dhacdo waliba sooyaalka waa shay aan dhumi hayn adduunyadan dhamaadka ah qolyaan kaga dhignayn meel oo raba waqtigan inay dhashaan dhag iyo taariikh markay salibin ka dhowreen ragaan lagala dheelmaynin dhunkaal noqotay buuhoodlo iyo dhinaci reer hawd dhamac iyo dab baa kala kulmay iyo dhuxulan naareed sanaagna waa dhagxaan iyo bir aan cunaha dhaafayna dhahar iyo in badan lagu degdego waran dhanaanay dhabase gobolkii sool baa noqday iyo dhuun la soo maray maxamuud garaado dhan oo dhumuc ilaahsiiyay dhir aan qodax lahayn laguma wadin sida dhalooleede dharaar iyo laba waxa qabsaday reer dhigooda ah dhudhuna laguma haysto iyo laxaad kumana dhaamaan ee jeegaantuna ma dhalin lamana dhalan mana dhaxlaanin maamulka kama dhaxayo iyo dastuur la isla meel dhigay dib hore iyo SNM lama lahayn dheeftan bood timiye dhowris iyo kalgacal loo hayana kuma dhex joogaan xildhibaanadoodii wata jeel la dhigaya ee dhakool waxa xabsiga loogu riday waa dhafoormudis ninka sageel walaalkii u dhalay dhere ka soo waayay dhiil uu reera kale kula kalahay kama baashaan dhiifay dhagxumada Puntland baa iskale inay isdhiibaan ummadda qaryo fudud faraku hayn baa u dhayma ah idinka dhasiigay oo sakraday gobolkan oo dhow haddii se maansa dhirif loo tirshaa dhiiri gelinayso abwaanadii ka dhiidhiyay adaa ugu cod dheeraa ee dhiile kiciye adiga tirshay iyo qaar dhigiisa ah hartigu waa kan dhoobane wuxuu hiildaba u diiday tol ma dhicin karaan geel nin lihidhiibayo wado shir shooraa dhufayso colka iyo dhoobir ciidan ee afartaana dhameeya waxaan dhaabe uga yeelay dusha lagama dhayo nabar hadduu hoos u dhaadhaco ee hadba kaan xilka u dhiibano ee maamulkan u dhaarta waa meesha Puntland ay hadba kaan xilka u dhiibano ee maamulkan u dhaarta inta uu dhaweysto iyo isagu waa dhac ku heshiisa dhalnateed wuxuu qaar tuso oo dhab uga yeelaba waqtigiisu goortuu dhan yahay ama dhamaanaya dhaqaale iyo hub wixii yaala buu kala dhaqaaqa ee dhigna lama yiraahdo oo horaad ugu gasheen dhiil ee reer kastiba 5 sano inay dhurtaan waa heshiis dhacay taladuna dadkaba kama dhaxayn dhowr biyo isxigay ee kursigana rag baa looga dhigay dhaxal awowgooda dib in loo sinaado oo haddana dheef la kala yeesho waa dhaqan Puntland ka hirgalay oo la isku dhuun muday kanse dhaliisha aad sheegtay baa baraba sii dheer kan dhaliisha aad sheegtay baa baraba sii dheer waxba uu dhaqaajine haddii taladii loo dhaafay ama uu kooxihii dhiil la galay dhigay halkay taalo dheeligu tan suuga baxaa way ka dheer tahay dadkuna waxay dhigtaan shar iyo khayr waa dhitowtal abwaan wuxuu dhawaaqayay yooday ma dhaafaani dhibkii dhacay mid ah shay rabeen inaad u dhiibtaane baarlamaanka dhaxaan nidaamkii hore ma se dhageysan nimankii la yiri dhiciya maatada dabadii kuwii hore ayay dhaankii mariyeen dhaqaale u imaaraad baxshay iyo dhowr dal oo carabi waatay masiir dhaafsadeen duhur dharaareede libaaxa intuu tulud ku dhaco dhaafo baaqiga ee tira dhidar u baada habeen dhaawac fiig maleh dhulka oo khaliij laga gado baa loo dhutinayaa emarsi hadii dhurwaayadan ballamay la iska dhicin waayay reer kastiba dhardhaarku la yimi buu dhifsanayaa adiguna halka dhigi lahayd dhariga doono dabadeedna waxay dhashiyo madaxaan dhowro wabillahi tawfiiq kaasina waxa abwaan calmadow waxaana ka duubay anigoo Axmed Shirbeeye. Assalaamu calaykum.